insha allahu tacaala dawadii aad ku jabin lahayd sixirka ayaan kuu sheegayaa. waa dawadii aad ku furfuri lahayd sixirku hadduu ku hayo adiga isaga daaweyn lahayd, haddii uu qof kala hayana aad kaga daaweyn lahayd ood kaga jabin lahayd sixirka cidda markaasi uu sixirkaasu hayo. insha allahu tacaala waxa aad samaynaysaa marka koowaad waad soo dahaaro qaadanaysaa, si fiican ayaad isku soo daahirinaysaa, waanad soo weysisanaysaa weyse dhammaystiran. intaas kadib waxa aad soo qaadan doontaa weel yar oo nadiif ah, waxaanad ku soo shubaysaa biyo nadiif ah. biyaha nadiifta ah ee aad weelkaa ku soo shubtay waxa aad ku akhriyaysaa kow suuratul alyaasiin, yaasiinka ayaad ku akhriyaysaa. marka labaad waxaad ku akhriyaysaa aayatal kursiga. marka saddexaad waxaad ku akhriyaysaa 99 magac ee allah subxaanahu wa tacaala. waxaad kusoo gabagabaynaysaa kusoo xidhaysaa 3 jeer oo suuratul alfalaq ah, qul acuudu birabbil falaq. 3 jeer ayaad kusoo gabagabaynaysaa ood kusoo xidhaysaa. haddaba marka aad weelkan biyaha ah aad ku tufayso tahliishan aad ku tufayso, waxaa lagaa doonayaa yaasiinka marka aad dhammayso in tuftaadu ay gaadho biyahan oo aad tiraahdo. aayatal kursiga marka aad dhammaysana in aad tiraahdo oo tuftaada gaadhsiiso. waxa aad bilaabaysaa labadaas kadib 99 magac ee allah subxaanahu wa tacaala. magac kastoo allah leeyahay subxaanahu wa tacaala marka aad akhrido tuftaada ayaad gaadhsiin doontaa weelkan biyuhu kugu jireen. intaas marka la isla xisaabo waxa ay noqonayaan 101. 2 suuratul yaasiin iyo aayatal kursiga 2 tuf oo aad gaadhsiisay weelkan, iyo 99 magac ee allah subxaanahu wa tacaala oo magac walba markii aad akhriday aad tuftaada gaadhsiisay weelkan. waxay xisaab ahaan isku noqdeen 101 ayay isku noqdeen. waxaa kuu soo hadhay 3 jeer oo aad ku soo khatimayso oo ah suuratul alfalaq, qul acuudu birabbil falaq. 3daa jeerna mar walbood akhrido tuftaada ayaad gaadhsiinaysaa. cadad ahaan iyo xisaab ahaan waxay isku noqdeen 104 tuf oo aad gaadhsiisay weelkan biyuhu ku jiraan. 104taa tuf ee aad gaadhsiisay kadib marka ay kuu dhammaystirmaan biyahaas qaybtooda badan waad cabbaysaa. bisinka ayaad qabsanaysaa, waad cabbaysaa. bisinka ka tegi maysid, waysadana ka tegi maysid, dahaarada ka tegi maysid. kelmad kastoo tiraahdana tufta ka tegi maysid ee waad gaadhsiinaysaa biyahan. haddii kale dawadaadu way kaa dhaltaalmaysaa. yacni yaasiinka markaad dhammayso tuftaada waad gaadhsiinaysaa, aayatul kursiga markaad dhammayso tuftaada waad gaadhsiinaysaa. 99 magac ee allah subxaanahu wa tacaala mid walba markaad akhrido tuftaada waad gaadhsiinaysaa biyahan. 3 suuratul alfalaq marka aad kusoo khatimto mid waloo aad dhammaysana tuftaada waad gaadhsiinaysaa biyahan. marka intaas kadib bisinka ayaad qabsan doontaa, biyaha intooda badan ayaad cabbi doontaa adigoo ku bilaabay magaca allah subxaanahu wa tacaala. in yar oo aad la hadhay waxa aad ku shubi doontaa caagadan. dabcan caagadan waxa lagu shubo dhibic ayay u sii daysaa, iyagoo dhibco ah ayay u sii daysaa shay kastoo caagadan lagu shubo. in yar oo aad la hadhay markaad caagadan ku shubto, habeenkii marka aad seexanayso sankaaga 2 dalool ayaad dalool kasta dhibic aad ku shubaysaa. hal dhibic oo keliya ay dhibic ku siinaysaa, halkan kalena dhibic ayaad ku siinaysaa adigoo aan ka tegeen magaca allah subxaanahu wa tacaala. bismillaah dhibic baad ku siinaysaa, bismillaah dhibic baad ku siinaysaa. insha allahu tacaala habeenka u horeysa markaad intaas samayso waxa aad dareemi doontaa xaalad caafimaad oo kula soo daristay. habeenka labaad waxa aad noqon doontaa qof matagay. waxaanad matagi doontaa matag aanad hore u arkin, nooc allaala nooc uu yahay. habeenka saddexaad caloosha ayaa ku dhaqaaqi doontaa. intaas wixii ka dambeeya waxaan kugu bushaaraynayaa in aad sixirkii ka daawowday oo aad sixirkii adigu iska daaweysay, iska jebisay, sixirkiina iska furfurtay adiga laftigaagu. qof kale oo dhibaataysan haddii aad garanayso la dhibaataysanna qaabkan oo kale ayaad uga furfuraysaa
sixirkana aad uga daaweynaysaa. laakiin shuruuduhu waxa weeye magaca alla laga tegi maayo, mid kasta oo la dhameeyana tufta waa la gaadhsiinayaa. dahaaradaadu waa in si wanaagsan aad usoo dahaaro qaadataa, waa in weysadaaduna kuu dhammaystirnaataa. gaadhsii walaalaha. baaraka allah fiik. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.